waxaan u mahadcelinaynaa laamaha amniga oo ugu horeyso booliiska waxaan u mahadcelinaynaa ciidamada nabad sugidda oo ammaanka sugaya ammaan runtii la isku halayn karo oo sida ay sheegeen goobaha aan tagnay oo suuqi bakaaraha suuqi ugu weynaa Soomaaliya maanta inaan tagno aan kula kulannay dadweynihii Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed oo shaqaysanaya oo meheradahoodii kala duwanaa u furan yihiin isla markaana faraxsan oo ku faraxsan hirgelinta doorashada qof iyo cod oo aad iyo aad runtii noo soo dhaweeyay oo aad iyo aad runtii u faraxsanaa wajiyadoodii ka muuqatay carabkoodii ka muuqatay siday ugu faraxsanaayeen runtii fursaddaas maanta in la siiyo oo aan soo aragnay dadweynihii soo aragno annaga lafteen wax weyn inoo ahay dhowr shay baan isku mar aragno halka ay marayso Soomaaliya waxaad ka dheehan kartaa suuqa bakaaraha Soomaaliya meesha ay soo gaartay muqdisho iyo gobolka banaadir meesha soo gaaray suuqa ugu weyn ee Soomaaliya ayaad ka dheehan kartaa dadweynaha joogay oo nooc kasta isugu jiray farxadda ka muuqatay heelanaanta ay u heelanaayeen inay codeeyaan oo kaararka soo qaatay oo qofkii aad weydiisay oo kaarka hal soo horbaxay kaarka waa wataa qaarkood qisooyinka cajiibka waxa ka mid ahaa muwaadin Soomaaliyeed oo yiri Yemen waxaan uga imid kaarka inaan qaato oo aan codeeyo ayaan uga imid meelo kala duwan marka dadkii runtii aan u tagnay waaba naga horreeyeen annaga wixii aan wadanay waxaaba ka muhiimsanaa rabnaa sheegno dadweynaha inay naga horreeyeen waana ka daawan doontaan muuqaalada waad arki doontaan dadweynihii oo runtii u heelan doorashada ku faraxsan xukuumadda inay u timaado oo ay arkaan mas'uuliyiintooda arkaan markii ugu horreysay waana ujeedada hadafka dhan ee la yiraahdo doorashada dadweynaha qof iyo cod ujeedka laga leeyahay waxa waaye dawladda iyo dadku inay kulmaan waa is arkaan waaye inay is xukumaan ma inay isu taliyaan ma inay is arkaan mas'uuliyiinta xukuumadda dawladda iyo dadweynuhu inay is arkaan ujeedkii laga lahaa waxaan u malaynayaa in laga gaaray maanta anaga lagu ku tagnay waxyaabaha kale oo soo aragnay runtii aad ugu faraxnay waxa kamid ahay ururadii siyaasadda kala duwanaa oo runtii boorar kala duwan dhagsaday oo jidadka taagan oo dadweynuhu weydiisanaya codad weydiisanaya ee arkaysa qaarkood muwaadinku wali haduusan kaarka qaadanin oo uu haysto shahaadadii kaliya certificate-kii ku boorinayo kaalayo soo qaado kaarka soo qaado oo ayaga laftigooda wacyigelintii dhiirigelintii qayb ka yihiin say cod uga helaan iyo coday aniga iyo coday ay leeyihiin marka runtii caqabadaha la sheegay waan dhageysanay waan maqalnay waan fahanay caqabadahaas oo mataqaana bilow waaye Soomaaliya ayaa waxay bilow ku tahay sida la sheegay 60 sano ku dhawaad sida la sheegayba inay markii ugu horeysay dadku u dareerayaan doorasho inay aadaan inay u dareerayaan marka caqabadaha hirgelinta logistikada technicalka wacyiga goobaha kala duwan ee qofka muwaadinka marka qaarkiis uu ku weydiinayo ku leeyahay waxa ay soo dhacay fariintii goobtii aan aadi lahaa dhinacayga jirta ma aqaano waxa runtii dadaal aan la qiyaasi karin degmo walbana ku soo aragnay warta nabadaan ku soo aragnay maamulkeeda dayniilan ku soo aragnay degmada dayniile degmadana joogno oo mataqaana maanta ku soo gabagabaynayno degmada howlwadaag aan ku aragnay inay qofkii muwaadinka ahaa tusaalayaal iyo tilmaamo iyo siinayaan meesha uu ka doonan lahaa oo kaarkiisa ka soo qaadan u fududaynayaan qofkii muwaadinka inuu soo helo wada shaqayn aad iyo aad runtii muhiim noogu ahayd wasiirada oo runtii ayaga laftigoodu maanta dadweynaha dhex galay oo la sheekaystay oo is arkeen iyo farxadda ka muuqatay annaga dhiirigelin ma inoo noqotaba annaga maanta waxa u soconaa wax dhiirigelino annaga dhiirigelin soo helnay oo runtii wixii aan filaynay ka badan soo helnay waxaan rabaa ku gabagabaynayaa muwaadinkii codaynayay codbixii waa isdiyaariyey ninka raba marka ama qofka raba oo hanka siyaasadda ka leh dalkan inuu asna isu diyaariyo dadweynuhu ay doortaan hadda waxaan joognaa xarunta degmada waa qaybaha ka mid ah oo aan aragnay dadweynaha runtii faraxsan ku faraxsan siyaasaddaas iyo qorshaha hirgelinta doorashooyinka marka waxaan leeyahay dadweynaha waa horeeyaan hadda kaararkoodana waa qaateen waa diyaar waxaan leenahay siyaasigu ay soo diyaariyo
qofka muwaadinka ah waxay dhadhamiyeen maalmo kadibna u codayn doonaan doorashadii marka qofku waxa marka uu arkana uu dareemo lagama fuji karo marka siyaasi uu isdiyaari dadku waa diyaar garoobeen isdiyaari martaqaana xisbiyada abaabula suuqyada u soo baxa dadweynaha u imaada siyaasadii ku dhex wareegi jirtay siyaasiyiinta ku dhex wareegi jirtay siyaasiyiinta ku dhex wareegi jirtay kaligood oo mataqaana maxay ahayd hebel u dhiibo hebel ka qaado wixii dhigi jiray kan leeyahay ku hay ka kala ku dhiibay waa laga gudbay marka runtii marka dadweynaha soo aragtaan ayaad arki doontaan dadka siyaasiyiinta amniga wax ka sheegay dadweynaha soo waraysta haytaad hadlinina amniga wax ka sheeginina dadweynaha soo waraysta soo arka ha iska hadlin adiga siyaasi waxa isku dayda inay ku hadashid dadka dareenkooda ku hadal waxa ay qabaan ku hadal marka waxaan kugu boorinaynaa siyaasi annagoo runtii aad u tixgelinayna aad u xurmaynayna siyaasi walba ee madaxda horaba inaad dadweynaha u tagto soo wareystid markaas kadib hadal dadku waa xogogaal ayaga nool oo suuqyada jooga oo wadooyinka maraya oo cibaadaysanaya masaajidda tagaya gabdhaha markaad wareysid ay ku leedahay telefoon baan wata qaali ah oo iPhone 17 ah habeenkii xilliga saqdaxan socona ayada ay soo wareyso leh meel kastaan taaganahay marka waxaa la rabaa siyaasigu inuu reflection u noqdo dadweynuhu meeshay marayaan hadda dadweynihii waa ka tageen la soo qabso soo gaar doorashadii isku soo diyaari dadweynuhu meeshay joogaan imow wax ka dhiirigeli macnaha waxa dhaqaaqay waxa waaye nidaamkii siyaasaddu waa dhaqaaqay wax dhaqaaqay waa kaas nidaamkii siyaasadda lagu aqoon jiray oo annaga laftigeena qayb ka ahaa jirnay annagana lagu soo doortay qof iyo codna lagu soo doornay dadka hor waxaan lagu soo doortay dad badan lagu soo doortay tii siyaasiyiinta kaliya ku dhex jirtaan lagu soo doortay marka in laga gudbay oo halka loo gudbay waa wax wanaagsan runtii dadweynihii waxaan aad ugu faraxsanahay amniga inay ka qayb qaadanayaan hay'adaha amniga ma ku soo gabagabeynaya hay'adaha amniga runtii aad iyo aad shaqo waliba tankeedu aad u culus yahay oo toodi ka badan ayaa ay runtii is saareen qayaan ayagana in lala shaqeeyo oo la garab istaago iyo maamulada degmooyinka dhammaan soo aragnay degmada Howlwadaag iyo degmooyinka Dayniile degmada Warta Nabadda iyo degmooyin kale oo dhan iyo gobolka Banaadir halala shaqeeyo juhdigeena iyo dadaalkeena aan isugu geyno doorashadaas inay hirgasho oo qof iyo cod ay hirgasho oo dadweynuhu wax doortaan aad iyo aad u maasantiin